kulanti wacan dhammaan daawadayaal ee barnaamijkeena akhbaaraadka caalamka iyo wargeyska maalinlaha Juba inta aanu barnaamijka u galin waxaan ka codsanaynaa inaad noo shirgeliso barnaamijkeena adigoo isla markaana ku shirgaranayo asxaabtaada haddii aad barnaamijkeena ku cusub tahayna waxaanu ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto adigoo isla markaana subscribe saarayo page-keena waad mahadsantahay aanu ku bilownay dagaalo culus ayaa weli ka socda gudaha bariga magaalada Donbas ee dalka Ukraine madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in kastoo ay yaraadeen weeraradii Axadii sababtoo ah cimilada si xumaanaya awgeed haddana tirada duqeymaha ay geysteen Ruushka ayaa weli ah nasiib darro aad u sareysa ku dhawaad 400 oo madaafiic ayaa ku soo dhacay bariga Donbas maalintii Axadda kaliya ayuu ku yiri khudbadiisii habeenimo isagoon tafaasiil ka sii bixin waxa uu sheegay in dagaalkii uu qaraara oo ka dhacay gobolka Donbas taasoo ahaa aagii uu Mr Zelensky ku tilmaamay toddobaadkii hore inay tahay jahannamo sababtoo ah weerarada Ruushka awgeed isaga oo wadankiisu u dabaaldegayo dib u qabshadii koonfurta magaalada Kherson Ruushka ayaa ku dhawaaqay bishii Abriil inay mudnaanta ciidankooda ay tahay inay qabsadaan dhammaan Donetsk iyo gobolada dariska ah ee Luhansk kuwaasoo loo yaqaan Donbas bishii July waxa ay sheegeen inay qabsadeen magaaladii ugu dambeysay ee Luhansk balse dib u gurashadii ciidamada Ruushka bishii September qaybo ka mid ah gobolka Kharkiv oo xuduud la leh gobolka Luhansk ayaa sare u qaaday rajada laga qabo in ciidamada Ukraine si degdeg ah ugu gudbaan Donetsk laakiin falaqeeyaasha militariga ayaa sheegay qabshashada Donetsk in ay ciidamada Ukraine kala kulmi doonaan caqabado adag sababtoo ah qayb ka mid ah waxa qabsaday 2014 ciidamada gooni istaaga ay taageerto Moscow kuwaasoo sanado badan qodayay difaacyo adag Ukraine oo moralkeedu sareeyo kadib guusheedii dhawaa oo ay dib ugu qabsatay koonfurta magaalada Kherson Ukraine waxa ay xoojisay weerarada ka dhanka ah Luhansk iyadoo la galay xilliga cimilada qabow baarayaasha dalka Ukraine ayaa sheegay inay ku dhinteen in ka badan 1000 qof oo shacab ah ilaa iyo markii uu bilowday dagaalka waxay sidoo kale ka digeen in qasaaraha uu ka sii badnaan doono tan hadda jirta haddii uu dagaalka sii socdo warkooda ayaa imaanaya kadib markii ay qaraxyo aad u weyn u gilgileen xarunta warshada nuclear-ka ee ku taala magaalada Zaporizhzhia ugu yaraan 10 madfac ayaa ku soo dhacay warshada weyn ee nuclear-ka oo ku taala koonfurta Ukraine Axadii mas'uuliyiinta Ukraine iyo Ruushka ayaa midba midka kale ku eedeeyay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nuclear-ka ayaa ku tilmaamtay arrintaasi mid aad u khatar badan weeraradan ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo in shil halis ah uu ka dhaco xaruntaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada Ukraine inkastoo ilaa iyo hadda aysan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray warshada xagga khatarta sunta nuclear-ka dhanka kale koonfurta gobolka Kherson taasoo dhawaan laga xoreeyay ciidanka Ruushka kadib 8 bilood oo ay haysteen in ka badan isbuuc kadib markii ay ka baxeen ciidanka Ruushka magaalada Kherson iyo tuulooyinka ku teedsan ayaa shacabka si tartiib ugu soo laabanayaan inkastoo magaalooyinkaasi aysan haysan koronto iyo biyo sababtoo ah ciidanka Ruushka ayaa jaray korontada iyo biyaha ka hor inta aysan ka bixin koonfurta magaalada Kherson dawladda Ukraine ayaa dadaalo dheer u gashay sidii ay dib ugu soo celin lahayd adeegyada asaasiga ah tan iyo markii ay magaalada ka saartay ciidamada Ruushka horaantii bishan taasoo ka mid ah guulihii ugu muhiimsanaa oo ay Ukraine gaartay inta uu dagaalka socday iftiinkii ugu horeeyay ee korontada ayaa maalmihii la soo dhaafay dib loogu soo celiyay koonfurta magaalada Kherson iyadoo dalka Ukraine uu galay heer qabowba ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Ukraine ayaa sheegtay inay dawladda bilaabi doonto in ay caawiso dadka doonayo inay ka baxaan balse waxa ay ku nuxnuxsatay in dadka deegaanka ay go'aanadooda qaadan karaan ayaga iyadoo aysan jiri doonin in lagu qasbo inay ka baxaan magaalada maadaama magaalada aysan haysan koronto iyo biyo nadiif ah iyadoo la galayo xilliga cimilada qabow taasoo ku adkaan doonta in lagu sii noolaado